السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودوادا دمانتين أصحابتا كوعدن kaabetechnologyandlanaguage meel kasta ku sugantihiin kusoo dhawaada barashada luqadda Ingiriiska qaybaheeda kala duwan. Dhammaantiin kaabetechnologyandlanaguage waxaa ka helaysaan mowduucyo aad u xiiso badan oo ku saabsan luqadda Ingiriiska qaybaheeda kala duwan sida grammarka, topicska iyo waliba dialogueska ama conversationska waxaa loo yaqaano idil ahaantiin mar labaad iyo mar saddexaad baan idin salaamayaa. waxaan idinku salaamayaa mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. waa ku mahadsantihiin daawashadiina asxaabta cusub ee nagu soo biiray. soo dhawaada, aad iyo aad ayaa mahadsantihiin kusoo biiridiina. sidoo kale waxaan kaa codsanayaa aan kugu baraarujinayaa inaad nagu soo biirto fadlan. haddaan nagu cusbay nagu soo biir. sidoo kale waxaan idinka codsanayaa idil ahaantiin intaanan bilaabin mowduuceena gaaban codsi yaro gaaban baan wataa. sii sheer gareeya mowduuca, sidoo kale mowduuca like gareeya, channelkana sidoo kale inoo subscribe gareeya. waxaad nagala socotaan YouTube channel kaabetechnologyandlanaguage iyo Facebook page kaabetechnologyandlanaguage, Instagram iyo dhammaan baraha bulshada kale. fadlan haddaan naga soo follow garayn fadlan naga soo follow garay oo waxa weeyaan Instagram iyo Facebook page naga soo follow garay. sidoo kale noo soo like garay, intaasi dhiirigelinaya noo tahay. sidoo kale mowduucana like garay, share garay, asxaabtaada la wadaag. sidoo kale waxa weeyaan channelka subscribe ku sameey. sidoo kale mowduucu hadduu kugu adkaaday haddaanuusan kugu adkaanba fadlan waan kula socdaa, si waxaan baan kula socdaa. ii soo qoro commentiga iigu soo qor insha Allah. waxaad u baahan tahay kalena ii soo gudbi iyagana. weye kusoo dhawaada mar kale mowduuceena. maanta waxaan qaadanaynaa mowduuca 66 lesson 66 hot English topics, mowduucyadii dhaadheeraa ee advanced English ka ahaa. mowduucaasaan qaadanaynaa topic mowduuca bood ku saabsan smoking, cabida ama qiijinta sigaarka. cabida sigaarka ayaan mowduuceena ku soo qaadanay. intaanan bilaabin fadlan waxaan ka codsanayaa inaad mowduuca like garayso. sidoo kale waxa weeyaan channelkan aad subscribe ku samayso, asxaabtaadana la wadaag. magacaygu waa Sharmarka Caraale Jaamac. alaaba waxaan idinla socodsiiyaa mowduucyada ku saabsan luqadda Ingiriiska. kusoo dhawaada, waan isla bilaabi doonaa mowduuceena. topic mowduuca bood ku saabsan smoking cigarette, cabida sigaarka. In the name of Allah, most compassionate and the most merciful, all praise is due to Allah alone, who protected me from mischief of cursed Satan and made me rational. Today the reason that I am standing in front of you is to suggest here the damage of smoking. As we know, every person in this cosmos has habit which is different from other people. For example, some people like to loot to property of the people and other hate it. Some people like to play football and other hate to play football. Some people interest in literature and novels and others hate them. But the smoking cigarette is the worst habit because it hurts your lungs and liver and causes disease which call it cancer. On the other hand, smoking cigarette take your health and money. The women who smoking cigarette are less than the men who smoke it, since it's dangerous for the pregnancy of the women. Finally, I am advising the factory which produce cigarette to stop or reduce it. Likewise, if you are smokers, try to give up, and if you are not, do not start now, and if you are not, do not start it now. topic mowduuca bood ku saabsan smoking cigarette, cabida sigaarka. In the name of Allah, magaca Ilaahay ayaan ku bilaabayaa. most benevolent, naxariista guud, naxariista
most benevolent naxariista guud naxariista and the most merciful iyo naxariista gaar ahaaneed ba naxariista. In the name of Allah, magaca Ilaahay baan ku bilaabayaa. Most compassionate naxariista guud naxariista muslim iyo gaalba u naxariista, and the most merciful naxariista gaar ahaaneedna u naxariista muuminiinta. All praise hufnaan iyo ammaan oo dhan mahad oo dhami isaydu waxay u waajibtay oo iskale to Allah. Ilaahay ayaa iskale ay u sugnaatay alloon keligii. mahad oo dhan iyo ammaan iyo sharaf oo dhami waxay u sugnaatay Ilaahay keligiis ayay u sugnaatay. Who protected me, ilaahaasoo iga ilaaliyay iga dhiciyay from mischief of Cashar, Satan shaydaanka la nacladay ee la dheereeyay ee la fogeeyay, and made me igana dhigay aniga rational qof macquula oo dhammaystiran iga dhigay aani waalinin oo qof macquula iga dhigay rational macquula. Today maanta the reason sababta taasoo ay amanigu standing aanu taaganahay in front of you idinka hortiina is waxa waaye to suggest inaan soo jeediyo oo hiya halkan ka soo jeediyo the damage dhaawaca ama dhibka of the smoking cigarette cabida sigaarka. sida weynaguna waan ognahay every person qof kasta on this cosmos oo caalamkan ku nool ama qof kasta oo waxa weeyaan in this cosmos adduunyada tan jooga ahaas wuxuu leeyahay habit caado iyo dhaqan ayuu leeyahay oo u gaara isaga which dhaqanka iyo caadadaas oo isagu is different uu kaga duwan yahay from other people dadka kale ama asxaabta kale uu kaga duwan yahay. For example, haddaan tusaale yar soo qaadano, for example tusaale ahaan some people dadka qaarkood waxay jecel yihiin to loot inay birilaqaystaan oo boobaan oo dhacaan the property hantida of the people ee dadka qaar ayaa jecel oo dhaqankooda ay tahay. Some people dadka qaarkood waxay jecel yihiin to loot inay birilaqaystaan oo dhacaan the property hantida of the people ee dadka and other halka kuwa kalena hayd ay necab yihiin biliqada dadka hayd iyada necab yihiin oo biliqadaas inay dadka boobaan oo hantidooda ay dadka qaataan ay necab yihiin to loot inay biliqaystaan property hantida ama waxa weeyaan alaabooyinka of the people ee dadka and other kuwa kalena hayd way necab yihiin iyada. Some people dadka qaarkood waxay jecel yihiin to play inay ciyaaraan football kubadda cagta inay ciyaaraan and other kuwa kalena hayd way necab yihiin to play ciyaarida football kubadda cagta. Some other people is halka dad kalena interest ay xiiseeyaan literature suugaanta ay xiiseeyaan iyo waliba novels buugta sheekooyinka ay ku qoran yihiin ama sheekooyinka suugaanta buugta ay ku qoran yihiin. Literature suugaanta ay xiiseeyaan sida gabayada iyo waxa weeyaan baraamburada iyo maansooyinka ay xiiseeyaan novels iyo waliba buugta sheekooyinka ay ku qoran yihiin and other kuwa kalena hayd way necab yihiin dan iyaga oo noveliska iyo literature-ka ah. But laakiinse the smoking cigarette cabida sigaarku is waxa weeye the worst habit waa caadada ugu xun waaye ama waa dhaqanka ugu xun ee uu qofku uu ku kaco ama uu sameeyo because maxaa yeelay caadada ama dhaqankaasi iyadu heartis waxay dhaawacaysaa your lungs sambabadaada ayay dhaawacaysaa and liver iyo waliba beerka ayay dhaawacaysaa oo ay waxyeelaysaa cabida sigaarku and causes waxayna ku sababtaa wadnaha iyo beerka disease cudurro ayay ku sababaysaa which cudurkaasoo koolid la yiraahdo cancer cudurkaasoo cancer la yiraahdo ayay ku sababaysaa wadnaha iyo beerka cabida sigaarku. on other hand haddii aan dhan kale ka eegno ama si kale haddii aan u tarjuno smoking cigarette dhee kale haddaan iska taagno smoking cigarette cabida sigaarku teeg waxay qaadanaysaa your health adiga caafimaadkaaga ayay qaadanaysaa oo caafimaadkaaga ayay kaxaynaysaa and money iyo waliba lacagtaada. The women dumarka ahu kuwaasoo smoking cigarette cabba sigaarka ama sigaarka qiitiya are less than way ka yar yihiin dhammaan nimanka ahu kuwaasoo smoke it isaga cabba sanis maadaama it isaga oo sigaarka ahi is a dangerous oo khatar weyn ku yahay ama halis weyn uu ku yahay for the pregnancy uurka women dumarka uurkooda maadaama khatar weyn oo aad iyo aad weyn uu ku yahay.
finally ugu dambeyntii ayam anigoo advising waxaan kula talinayaa the factories warshadaha which kuwaasoo produce soo saara sigaarka soo saara to stop inay joojiyaan ayaan kula talinayaa. haddii kale oo aanaysan joojin karaynin otherwise haddii kale oo they can't stop producing cigarette aanaysan joojin karaynin soo saaridda sigaarka to reduce waa inay yareeyaan ama ay weeqaan it isagoo inta ka yareeyaan likewise sida ay leedahay xigmadda qiimaha badan. if haddii adigu aad tahay smokers sigaaryo cab haddii aad tahay oo sigaarka cabto taray waxaad isku daydaa to give up inaad joojiso isku day please oo aad iska dayso maadaama caafimaadkaaga qaadanayo. and if haddii kale adigu aanad ahayn qolada sigaarka cabta please fadlan do not start ha bilaabin it isaga now hadda ha bilaabin ee iska ilaali. mowduuca yar ee gaaban ayaan idinku soo talagalay dhammaantiin waa ku mahadsantihiin mowduuca daawashada daawateen. haddaad halkan ila soo gaadhay waan kaaga mahad celinayaa daawashadaada ee fadlan waxa weeyaan mowduuca laygaray channelka subscribe ku samay Facebook iyo page iyo Instagramna fadlan naga soo follow garay oo noo soo laygaray haddii aad ila socoto oo aad si fiican ila socoto mowduuc kasta soo galeyna aad la socoto fadlan aragtidaada iyo waxaad ka qabto page-ka xagga hoose iigu soo reeb oo ii soo qor aan markuu ku dulmaro Englishta. in the name of Allah, the most compassionate and the most merciful, all praise I do to Allah alone who protected me from mischief of Cashar Satan and made me rational. Today the reason I am standing in front of you is to suggest here the damage of smoking. As we know, every person in this cosmos has habit which is different from other people. For example, some people like loot of the property and loot to property of the people and other hide it. Some people like play football and other hide to play football. Some other people interested in literature and novels and other hide them. But smoking is the worst habit that we commit because it is hurting your lungs and liver and causes disease which call it cancer. On the other hand, smoking cigarette takes your health and money. The women who smoke cigarette are less than the men who smoke cigarettes, and it's dangerous for the pregnancy of the women. Finally, I am advising the factories which produce cigarette to stop or reduce it. Likewise, if you are a smoker, try to give up, and if you are not, please don't start it now. I think you understand the lesson. Please like mowduuca oo share garay asxaabtaada la wadaag. halkaasaan kusoo gabagabeynaa mowduuceena maanta. waxaan nagala socotaan kaabetechnologyandlanaguage. waxaan idinla socodsiinaya mowduuca anigoo markaa raala jaamac. intaan mowduuca xigay isugu iman doono saaxiibayaal waqti wahayde waanaado. thank you very much daawashadaada. inta mowduuca xigay isugu iman doono goodbye. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.